kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa lagaga hadlayay xaaladda caafimaad gaar ahaan qabsoomidda tallaalka cudurka dabaysha oo dardargelin lagu sameynayo kadib markii kiis cudurka dabaysha laga helay barakacayaasha degmada Ari Cadeeye ee gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeennada wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaana ugu horeyntii howlwadeennada caafimaadka ee tallaalku halkaasi ka sheegeen bulshadana ugu baaqeen inay siiyaan caruurtooda tallaalka maadaama cudurka laga helay deegaan ka tirsan gobolka Sool waxaa laga helay ilmo yar hadda oo ku nool degmada la yiraahdo Ari Cadeeye walba tallaalka waa la qaban jiray runtii laakiin hadda wuxuu kaga duwan yahay xanuunka ilmaha yar laga helay suusan u sii fidin oo gaadhin caruurta caafimaadka qabta in markana waa wacyigelin aan ku wacyigelinayno hooyooyinka iyo aabaha caruurta waalidiinta waxaan ku wacyigelinaynaa in la tallaalayo caruurtii 5 sano ka yareed ka horna la tallaali jiray laakiin tallaalkan uu tallaal ka duwan tallaalkii uu yahay maadaama xanuunkii uu ku jiro gobolkeena waxaan halkan sugu nimi in 7 bisha hadii lahayd maanta 7 bisha tahay hadii lahayna gaarsiiyo in la bilaabi doono ololihii tallaalka dabaysha ee caruurta 5 sano ka yar saad la socotaan waxa xanuunkaasi waa xanuun dilaaya waa xanuun khatara waa xanuun si dheeraysa ku fada oo xoog u dheereey marka aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa oo aad iyo aad u muhiimsan in bahda caafimaadka iyo howlgalayaasha hawshan ka shaqeynaya meel kasta ay tagayaan iyo goob kasta ay joogaan dadka lambarkoodu waa waalidiintii ay hawshooda aad iyo aad caruurtooda ay u tallaashaan aad iyo aadna ay uga taxadiraan waxyaalihii berri imaan doona maanta ay ka taxadiraan halmaalin bay ceer joog tahay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif Faarax ayaa ku dheeraaday howlgalka caafimaad iyo sidoo kale inay qaadayaan olole ka dhana cudurka dabaysha isla markaana 7 bishan uu ka bilaabanayo guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolkani Sool in aynu u baahanahay in dadkii la ogeysiiyo inay tallaashaan caruurta ka yar 5 sano lagana tallaalo xanuunka halista ah ee la yiraahdo dabaysha xanuunkaas oo hadeer dhawaan laga helay degmada Ari Cadeeye runtii waxaanu ku dhiiri gelinaynaa oo aanu ogeysiinaynaa oo aanu gaarsiinaynaa dhammaan waalidiinta caruurta haysta 5 sano ka yar inay tallaashaan caruurta sidoo kale tallaalkaasi wuxuu bilaabanayaa taariikhdu markay tahay 7 bisha ayuu ka bilaabanayaa gobolka Sool dhinaca kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ayaa dawooyin kala wareegay hay'adda ARC kuwaas oo kamid ah gurmadka caafimaad xilli baahi weyn ay ka jirto xarumaha caafimaad deegaano badan oo hoos yimaada waxaana isuduwuhu uga mahad celiyay dawadaasi marinta caafimaadka ee gobolka Sool oo aan taakalkan ku wareejin doono daawadaas isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif wareejinta daawadan oo daaranayd codsi ay u soo qorteen muxuu ahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool hay'adda ARC codsigaas oo ku saabsanaa xilli abaareedka gobolku galay runaantii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa hay'adda ARC oo runaantii hay'adda markaad xagga caafimaadka gobolka loo eego hay'adaha ugu gacanta midig u ah wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool oo runaantii mseejada hayaan ee full support system hadii dawo tahay hadii incentive tahay hadii qalabeyn tahayba kilibkan waxaan u qabanaynaa waxa weeye waa mahadnaq waxaanu dhawaan ka codsanay hay'adda ARC xafiiskeeda Laascaanood in ayna soo gaarsiiyaan dawooyin runtii waqtiga iyo wacyiga lagu jiro qof waliba waa garanaya ina hay'adda ARC International oo runtii codsigii wasaaradda caafimaadka uga jawaabtay sidii ugu haboonayd Samiir Saciid Bilkalsan TV Laascaanood